بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنتو تاريخ تاهي 12 سبتمبر 2008 guddiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu qaatay go'aan lagu xallinayo oo uu arko in xal loo helo dalkan khilaafyada jira. waxaan marka hore u soo jeedinaynaa dowlad goboleedyada mooshinada meelaha qaarkood laga sheegayo in si degdeg loo joojiyo arrinta waa ka codsanaynaa. anigu intaa haddii aan idhi waxaa ku soo dhaweynayaa xogeyaha guud aqalkan si uu u akhriyo go'aankii aan gaarnay oo ah wufuud aan u dirayno dowlad goboleedyada. marka xogeya guud ku soo dhawow. mahadsanid. akhri. guddiga joogtada ah golaha aqalka sare soo socda. guddigu isagoo tixraacaya go'aanadii ka soo baxay kulankii 16aad ee Sebtembar 10keedii 2018 waxa uu guddoonsaday in uu wufuud u kala diro dhammaan dowlad goboleedyada si ay ugu kuurgalaan warbixin dhab ahna uga keenaan xaaladda amni siyaasadeed nololeed iyo mid federaaleynta dalka si xal looga gaaro khilaafka iyo ismaandhaafka hadda ka dhex taagan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. 2 si wufuudda aqalka sare u diraya dhammaan dowlad goboleedyada u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah loogana miro dhaliyo xal u helidda khilaafka iyo ismaandhaafka taagan. guddiga joogtada ee aqalka sare waxa uu baaq u dirayaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh abaabulka iyo samaynta soo jeedinada ama mooshinada ka dhanka ah madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada si in ay si degdeg ah u joojiyaan iyaga oo fursad siinaya dadaalka xaldoon ee golaha aqalka sare uu ku raadinayo xasilooni siyaasadeed iyo isfaham guud. waxa uu aqalka sare ku boorinayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay joojiyaan kana fogaadaan tallaabo kasta oo sii horin karta khilaafka iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee hadda ka dhex taagan. 4 ugu dambeyn guddiga joogtada ah ee aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in ay taageeraan dadaalada dastuuriga ah ee aqalka sare ku raadinayo xal laga gaaro khilaafka iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee hadda taagan. dhammaad.